ciidamada la dagaalanka argagixisada Soomaaliland ee loo yaqaan RRU ayaa habeenadii u dambeysay howlgalla ay ka sameeyeen magaalada Laascaanood kala baxay gudaha magaalada dhowr qof oo isugu jira macallimiin iyo arday kuwaasi oo loo qaaday dhanka magaalada Hargeysa daba arintan ayaa walaac ku abuurtay ehelada iyo qaraabada dadkaasi iyagoona sheegay in dadkaas hadii ay dambiilayaal yihiin gobolku uu leeyahay saldhigyo iyo maxkamado mudaharaad laga soo horjeedo arintan oo lagu qabtay degmada Xudun ayaa ehelada iyo qaraabada dadkaasi wax xukuumadda ka codsadeen in xorriyadoodii dib loogu soo celiyo dadkaasi wixii ka dhacay gobolka Sool ragga sidii aan taabaca habeen walba nin la baxayo oo ninka degmada u dhashay Mustafa Cali Faarax halka isku ka dhigi jiray oo gaariyar ka shaqaysan jiray oo toban caruur aasda min magaalada ku haysto u shaqaysanayay oo xusbi siyaasadeed ku jirin oo xusbi diiniya ku jirin oo aan koogaan waxa lagu qabsaday maanta aan warka haynin qabsiga ragga waa la xidhaa waa caadi waligeed waa la xidhi jiray laakiin tiisu xarig maaha waaftuub waa hadee ku rooyahay madax duubashadii ka xun waxa ay leedahay si degdeg ah hadaan looga jawaabin anagu isaga iyo qayrkii kuwa loo qaatayba si degdeg ah hadii aan loo soo dayn oo hawsha faraha looga bixin nin laaftuubay maamul baa ka dhisan hadaan gobolka maamulkiisa ay ku qanacsanayn anana ka Hargeysa kuma qanacsanin hayaga la xidhan lama geyn karo waayo waa madax duubasho waaftuub si xun baa loo ka haystay ninka waa la xidhaado oo dil xidho ama la dhaadhiciyo wax kasta waa lagu sameeyaa laakiin ragga iyo isaga iyo ragga la midka ahba aftuubka lagu haysto aftuubka lagu haysta dad gaarana ku haysta aftuubka lagu haysto hadaa si degdeg looga jawaabo wixii ka dhacay wixii qabta ka mas'uuliyad mowqifkeena ka cadayno halkan xiritaanka macallinkii dayarta ahaa iskuulka la yiraahdo ilays uu ahaa macallinka la yiraahdo Mustafa Cali Faarax aanu garan weynay iyo ragga la mid ah sababta loola baxay ee loo xidhay ilaahay hadda la garan laayahay arintaas waxaan u qaadanay annagoo ka xun oo ku cadaynayna oo mar walba leh aadeen ninna kama dheera ninna kama boodka sababta loo xidhay ma garanayno halka isku soo baxay mudaharaadkan xarigii ka dhacay iyo ragii lagu qabtay gobolka Sool meesha ay kala waa degmada Xudun waxaan ugu mudaharaadaynaa Mustafa Cali Faarax iyo ragga la midka ah ee ku xiran Hargeysa waxa lagu qabtay ilaa hadda la socodsiin ee isku amaraysa ee sagdada xaan la geyn oo aan maxkamad la geyn oo waxba aan laga qorin oo waxa lagu haysto ilaa hadda maamulka Soomaaliland uu sheegin anagu ma aflaga doonayno mana hanjawayno laakiin waxaanu leenahay cadaynana xaqa hadana arintaas si degdeg wax looga qaban maamulka Hargeysa ama Soomaaliland ay wax ka qaban anagoo ku hadlayna wax garadka degmada Xudun gobolka Sool hadana arinta wax ka qaban waxa weeye waxa ka xun baa dhacaya xarigan nimanka la ka haystay ee qabaalada ee barada lagu qaatay ee saldhiga Hargeysa dhageeyay iyo saldhiga xaafadeedka oo saldhiga weynaayad xitaa lama geyn Hargeysa ee santaraalka aha maxkamad lama geyn waxa laga qoray raashin iyo dadkii waa loo diiday waxaan u aragnaa markaa cadaawad gaar ah oo la xidhiidho gobolka shaqaaqadii ka bilaabatay bishan bartamaheeda hadda dhamaatay bartamaheeda shaqaaqad ka bilaabatay waxna ku dhintay waxa dad lagu xidhay ayaa lagu nisbay baa lagu dabaldahayaa umada inta leego shucuurtooda istaagtay waxay ka hadlaysaa ninkii halka bilaa sababta looga qaatay waxaan leenahay maamulka Soomaaliland saddex sano ninka loo soo daayo xorriyadiisa lagu soo daayo ragga la mid ah lagu qaatay hadii aan la soo daayo horta soo dhawaysho shirkii faraha badnaa ee waagii dhaway iyo Soomaaliland soo gelitaankeedii iyo wixii aanu abaalkayagii wuxuu noqday in dadkayagii la xiro banna la laayo ilaa madaxweynaha ilaa alifna dablaha askariga inta xukuumadda maanta kulmiye ka koobantay waxaan leenahay ninkaas si degdeg ah loo soo daayo hadaan loo soo daayo waxa la wixii ka dhacay dawladda mas'uulka noqonaysa Mukhtaar Cabdi Jaamac warbaahinta SBC Laascaanood